askar ka tirsan militariga waddanka Afghanistan oo lagu dilay weerar ka dhacay waddankaasi. ugu yaraan 12 ruux oo inta badan ay ahaayeen ciidamada militariga ayaa lagu dilay weerar ururka Taliban ay ku qaadeen xero ciidan oo lagu tababaro militariga iyo booliska oo ku taala bariga Afghanistan. saraakiil ka tirsan dawladda ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in 30 ruux oo kale weerarkaasi ay ku dhaawacmeen. madaxa waaxda caafimaadka ee dawladdaasi Mr. Salim ayaa waxa uu sheegay in dhaawacyada qaar ay xaaladoodu aad u daran tahay loona daabulay magaalada caasimadda ah ee Kaabul. weerarkan ayaa ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu qarxiyey xerada ciidanka ee ku taala magaalada Midanshaah ee caasimadda gobolkaasi Wardaag ee waddanka Afghanistan. arrintan ayaana waxa uu xaqiijiyey afhayeen ku-xigeenka wasaaradda amniga Afghanistan Nasrat Rahimi. dagaalyahanada Taliban ayaa bishii la soo dhaafay waxa ay kordhiyeen weerarada ay ku qaadayaan saldhigyada dawladda iyo kuwa ajaanibta ah ee ku sugan waddankaasi. magaalada Midanshaah ayaa 44 kiiloomitir waxa ay dhanka waqooyi galbeed kaga beegan tahay caasimadda Kaabul.